marka taa haddaanu aniga wiilkiiga maarmeyn do hooyadii guri ha u kirey waan soo booqana hooyadii bay noqotay do hooyadii gurigii ibtila kuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogolay kamana fasax qaadanayaan hooyadii in hooyadii guri ku noolaato uma marayo iikaadi inaka adiga ku qaba uma fasax qaadasid in hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaaday ogolaansho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyaday inta doontay ku nool walaalahay baa ku noolaanay isaga fasax ugama qaaday kamana masuul aha reerkayga wixii imanaya wixii ka baxaya waay waxaana jeceshahay inuu ku ogolaansho hooyadii kaaga qaado hooyadii walaalkii haduu imanay maxay ku kala duwan yihiin hooyada iyo isaga hooyadii furitaan baa sababasaaba waxa muhiim ah in loo daayo inta guriga masuulka ka tahay imika odayaashan fadhiya waxaad moodaa xogeena hablaha yara cadaadinayeen oo aragtidooda la yaabaneen maaha in aragtida qofka bini'aadamka la yaabo raygu qabo raygiisa loo tixgeliyo haduu ku qalday haduu ku saxsay marka weyn adna raygaga la wadaagto marka kii sax uu ku qaadanay isaga u taala ajannatu tahta aqdam al-ummahat rasuulku joog ma sha Allah walidayn ma nabiga alayhi salatu wasalaam aga hooyaday buu jannada dhigay laakiin aad gabadheeda muu dhigay weydii ma furaysaa soddon haday tagayaan gabadha hooyaday halka ku qaadi doonaa voy kan jeelo kadin kaga baxaysaa doodaasi wiilasha iyo gabdhaha ay dhex taalo oo muslim baa mise waa gaalo waa muslimiin Soomaali ah okay nidaamka gurigooda maamula ama guriga ay ku hagaan ama ay isku guursadeen ma shariica islaam baa mise waa mid gaalo waa shariicada islaamka waana dad muslimiin ah warku waa cad yahay marka haddaan labada jawaabood helay in iyaguna muslimiin yihiin guriga sharcigii lagu dhisayna uu ahaa ka islaamka iyaguna gurigooda inay diin islaam ku maamulaan inta haddaan jawaabteeda helay jawaabta su'aasha jawaabteeda way caddahay guriga hooyadu waa hooyadii guriga aabuhuna waa aabihii guriga mid walbana xuquuq buu leeyahay walahunna mithlu alladhi calayhinna bilmacruuf walilrijaali calayhinna daraja waa aayad qur-aan dumarku xuquuqda ay leeyihiin mid la mida lagu leeyahay ninkii xuquuqdu leeyahay mid la midaya xaaskiina leedahay ragguse hal darajay la dheer yihiin baa la yidhi oo aan loo sinayn darajadaasi maxay tahay waa darajada qawaamada waa guriga iyo hoggaankiisa waa midda aayadda kale Ilaahay ku sheegay ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa isaga ay tahay guriga mas'uulka koobaad ka ah isaga ay tahay inay reerkiisa iyo xaaskiisa xataa uu toosiyo marka gurigan ninka mas'uulka ah isaga oday ka ah hooyaduna waa hooyadii guriga wixii arrimaha ku saabsan wada tashi wa amruhum shura baynahum laakiin go'aanka gabadhamaysta ayaa leh marka la tashado odayga guriga iska leh laba awoodood oo siman ma aha hadday laba awoodood oo siman noqon lahaayeen waa warka gaalada iyo sharciga gaalada gurigaasi ma dhisnaan karo waa ka Ilaahay quraanka ku sheegay shay kasta oo jira laba awoodood oo siman hadduu ka dhaxeeyo ma jiri karo لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صمدا يقولكني هل إله إنه ليه هو ماموله هل ربي وحاكو تصيا حاجاك سندي اسكو توسندي النظام كي أي ولي قلوا أركبي كسعدا هل جهة ماموش هذي لوجه يكبد مامولي لهاي ويفسادي لهاي صورة قلمة هذا الدولة أما الدولة ده لما مدحوينه اسكو أود الدولة ما معمولي كران شركة لبد منيتشر واسكو أوده ما معمولي كران ما هو حبديه اسكعد واحد كوريجا
ninka oday ka ah hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga hadday timaado su-aasha qaraabada hadday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay gaar ahaan hadday waalidka yihiin qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin gaar ahaan hadday waalid yihiin ma jirto wax la yidhaahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaanoo guriga firi bay guriga waa u fasaxayay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto ya oo hadday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada waa sharcigee waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waay sharci kufri waay sharci islaam maaha hooyada maamada guriga iskale ninkeeda hooyadii iyo aabihii gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyagaa iskale nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi anta wamaaluka liabiika nin buu la hadlayay wuxuu ku yidhi adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idin leh hooyadu waa kasii xaq weyn tahay ya haddiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ya ninkaaga ciddii lahayd see baa guri loogu diidi isagii baaba la yeeshaye waa midda labaadee haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yidhaahdaan waryaa middani nama anfacaysee fur waa lagu eryi marka hooyaan guri u diidi idan ha lay weydiisto guri kale ha loo kireeyo ay sharcin hada ay sharcin hada qaraabo goysnimo intaa leeg waxa laga hadlay haddana waa waalid waxa laga hadlo haddana waa waalid waaye qaraabo kale xataa hadday ahaan lahayd bacdu shari ahwan way isdhaami lahayd laakiin waalidkiibaa guriga loo diidiyo idan ha weydiisteen waa thaqaafo iyo dhaqan inoo yimid oo soo guuray waaye waa dhaqan la soo minguuriyey oo aan ahayn kii islaamka aanan ahayn kii bulshadeennu ay lahaan jirtay war miyaynu lahaan jirnay ma dhaqan waxaan lahaan jirnay hooyo meel kale ha loo raadiyo la yidhaah maya ama xagga xaaska ha ka timaado ama xagga ninka ha ka timaado hooyo gogasha ugu wanaagsan baa loo dhigaa cuntada ugu wanaagsan baa la siiyaa guriga idan ma weydiisato iyadaa iskale aabba waa sidoo kale ama dhanka xaaska ha ka yimaado ama dhanka ninka ha ka yimaado waalid baa idan weydiisanee adari dhaafi meel kale u kireen naagta sidaa qabtay in la eriyo waayo in la fiijiyo waayo taasi naag maaha xaas maaha haddayna waalidkiiba ogolayn oy gurigiiba ka sheemayso u diidayso xaaskaasi muxuu yahay ya malaha naag caddaan aad qabtaan naag yurubiyaana maad soo guursateen gabadhaas soomaali maahaan u malaynay waxaasi dhaqan maaha la dhaqankeenna islaamkana ma aha walaa dhaqan diinteenna ka soo jeedana ma aha waalidku madaxuu saaran yahay xaqa ilaahay siiye waa xaqiisa midka ku xiga ma garata xoolahaaga waalidkaabaa iska leh alimaamu axmed caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xataa inuu baahidiisa xoolahaaga ka qaato keliya meehe xoolahaaga intuu qabto wax ka sadaqaysan karaa waalidku addoontaada kuu joogta buu waalidkaagu xorayn karaa isagoon idanku weydiisanay alimaamu axmed fii kitaab ilwarac buu saa ku leeyahay marka waa yaabay gabdhihii iyo wiilashii baa doodaya boqolyaha tictokka ku jira unabay dhow ka hadlay ma kuwaasaa doodaasi dhex taalla hade kuwaasi waxaan u malaynaya waxaan ugu cudur daaraynaa islaamba kama warhayaanba dhaqan islaamna intooda badan kama warhayaan mushkilada haysata waxa weeye doodaha waxa keenaya thaqaafada iyo dhaqamo kale lasoo maqlay lasoo arkay markaasaa waxa weye guryihii islaamka la doonaya in lagu maamulo wax foolxun waahay nacam
doodahan waa doodo la soo minguurinayo wey telefishin ha ka dambeeyo idaacadi ha ka dambayso wax la soo minguuriyey ummado kale laga soo qaaday oo dood u dhex taalo Soomaa markaasaa dhalinyaradii muslimka la dhex keeno la yiri doodan ka dooda war maxaan ka doodnaa wax jiraba ma ahe dhaqankanagiina ma aha diintanaduna ma qabto ma gaalaan nahay markaan ka doodayno hooyo iyo aabbo lama soo dhaweyn kare banaanka hal la geeyo ma gaalaan nahay mise muslim baan nahay su'aasha illa weydiiyo waa telefishinka waxa keenay umada dhex dhigayna waxa loo baahan in la yiraahdo war ma gaalaad doodsiinaysaan mise muslim baad doodsiinaysaan aslan ba su'aashaas inay timaadaa khalad ah wallahu a'lam